السلام عليكم أصحابي waa idin wada salaamay meel kastoo aad joogtaan soo dhawaada caawa waxaan ka hadlaynaa waxaa waaye dad badanaa waxay dhaheen lacagtii oo cost of livingka iima soo dhicin marka lacagta cost of livingka laba qeyb ayay ahayd qeybtii oo dambeysay hadda waa tii disabilityga ee soo dhici lahayd 20 June ilaa 4 July marka taas hadaysan kuu soo dhicin 4 July shalay ahayd maanta wixii ka dambeeyo waad ka doodi kartaa oo iima soo dhicin waad maxaa intaad wacdo ayaad u sheegi kartaa oo report garayn kartaa laakiin hal mar ka badan ha soo report garaynina aan la dhahay haddii aad hal mar noo soo sheegtaan mar kale ha soo sheeginaya markaad wacaysiin muxuu ahaaye national insurancegaaga adoo haysto waa inaa wacdaa mar kastana muxuu ahaaye informationkaaga oo dhan gacanta ku hayso markaad wacaysid ay tan labaad haddii ay tahay tan kaloo oo maqan tii oo the cost of livingkii oo 301 pound ahaa ee soo dhici lahayd April 25keeda ilaa May 17keeda taasna weli haddaysan kuu soo dhicin ayadana waxaad muxuu ahaay waa wacaysa telefoon kala xiriir ama universal credit-ka journalkiisa gal ee meesha aga sheeg wixii oo kaa maqan iima soo dhicin lacagta aad leedahay hal mar ka badan hasoo report garaynin aan la dhahay hal mar ka badan hasoo report garaynin hal mar keliya noo soo sheeg ay teeda kale haddii lacala adresska aad ka guurto ama wax arrintaad iska bedelaan waa inaa u sheegto saa maxaa jira ama bangi aa bedesho laga yaabo inay kuu soo dhici weyso waxaagana saas ay kugu gafaan asxaabay la socodsiiya xaaladiina meesha mar kastaba wixii iska bedelo la socodsiiya si ay wixiinan idiin gafin waraaqahana meelo qalad aysan idinkaga dhicin assalaamu calaykum